golaha wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed ee Soomaaliya ayaa maanta waxay shir ku yeesheen magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay waxaana shirkan shir gudoominayay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed ee Soomaaliya mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftigreen ayadoona shirkan lagu falaqeeyay arrimo dhowr ah waxaana arrimahaasi kamid ahaa siyaasadda dhaqaalaha iyo ammaanka deegaanada koonfur galbeed ee Soomaaliya gabagabadii shirka waxa warbaahinta la hadlay wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta dowlad goboleedka koonfur galbeed ee Soomaaliya ugaas xasan maxamed Soomaaliya deganaansho badan ku jirta iyadoo sidoo la ogyaaba ciidamada qaranka Soomaaliyeed iyo nitahan koonfur galbeed Soomaaliya burooyinkii la dhaafi ama Roobland gudaashe dagaal badan la galeen shabaab gobolka Shabeellada Hoose Baay Bakolba iyagoo meeloogi iyo duulaanka ama gulufka ka qaadayna wali waxa guulo badan ku hooyeen gaar ahaan gobolka Shabeellada Hoose oo dib u xireen ciidan ballaaran ku dararta waana la ka bogaadii waana la ka amaanay ciidamada qaranka Soomaaliyeed sida iyo gududo hay'an waajib soo qaran iyo nito la dagaalanka ururka gumaadka ummadda Soomaaliyeed al-shabaab saasaadka ku ciidamada qaranka Soomaaliyeed oo ku sugan gobolka Bakool si ogdeen ba howlgal ka jiraan howlgalladaasna guul badan ku hooyeen iyagoo meel badan oo shabaabka dadka Soomaaliyeed reer koonfur galbeed gaar ahaan reer Bakool iyo ka dhabaayeen isbaarooyin iyo yaaleen badan ku burburiyeen dhawaato badan injeysidan gobolka Baay oo xasilooni badan ku jirta ciidamada Soomaaliyeed ee ku sugan koonfur galbeed gaar ahaan gobolka Baay ahaan koonfur galbeed ahaan amisom iyo naytoy ahaan daraawishta koonfur galbeed Soomaaliya howl badan oo ammaanka anheliyo iyo ku wadaan guud ahaan gobolka Baay golaha wasiirada koonfur galbeed Soomaaliya